الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه. الله أحمده سبحانه على إحسانه وجوده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الآله والأصحاب أجمعين، ثم أما بعد. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. daawadayaal xalqadii 14aad baynu caawa maraynaa, inagoo xalqadan ay xalqad muhiima tahay, kaga sheekaynaynana axkaam fara badan oo fiqhiya oo ku saabsan waxyaalaha soonku ku jabo ama muftiraat as-sawm. walaalayaal culimadu waxay qeexeen yiraahdeen muftiraat as-sawm waa 7 bay yiraahdeen, waa 7 ayay yiraahdeen. ugu horeysa hadaan u guda galo waxa weeyaan ya akhwaan ya akhawaat, aljimaac waa galmada, waa isu taga ninka iyo haweenadiisa, ilaaju dhakari fi lfarj wa huwa acdamuhaa, waa kooda ugu dembiga badan, ugu ismiga badan. markuu qofka banaadamka saayimkii uu gabadhiisa mareerkiisa u tago, soonkaasi ama farad ha noqdo ama nafil ha noqdee, soonkoodaasi fi nahaari ramadaan baatil weeyaan. waxaana ku waajib noqday alqadaa in la qaleeyo iyo alkafaaratu almuqallada. qalaysku waa maalin, alkafaaratu almuqallada 3 arrimood bay u kala baxdaa. waxa weeyaan cidqu raqaba, inuu qofku naf xoreeyo, uu naf furto. haddii uu waayo 2 bilood oo isku xiga oona maalin u dhexaynin inuu soomo 60 cisho. haddii uu waayo inuu 60 miskiin uu siiyo, miskiin walba nus kiilo iyo 10 gram oo burka ah ama haruurka ama galeyda ama waxaa la miismiiso. 2 biloodna waa inaanay u dhaxaynin maalin ilaa licudrin sharci, sida safar uu ku qasban yahay oon uu kaga baxsanayn soonka isku dabaxiga, ama cudri kale oo ah xanuun, inuu qofkaasi xanuunsanayo, ama cudri sharci oo islaami oo ah in salaada labada cishe iidii soo galeen wagayrihaa. haddii kale laakiin waxaa ku waajiba inuu isku xigsiiyo. qofka dumarkii haddii la qasbo oonay raalli ka ahayn soonka inay jabiso, uu ninkeedu qasab ugu tago, iyada wax allaaliya wax korkeeda ah bay yidhahdeen culamadu ma jirto. laguma laha qadaa iyo qallo, lagumana laha alkafaaratu almuqallada, waayo iyada waa la qasbay, soonkeedu waa saxiix, wax allaaliya wax lagu leeyahayna haba yaraatee ma jirto. laakiin laysa calaa zawjiha irqaamuha, ninkeeda umay banaanaanin, umana fasaxna inuu qasbo uu xaajadiisa kaga guto bilqasab, waayo way sooban tahay, soonkaasna waa soom waajiba, labaduba in ilaahi subxaanahu watacaala ka baqdaan bay tahay. waxaa u daliila mowduuca kan, waxaa u daliila xadiiska fi saxiix muslim inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u yimid, uu ku yidhi waqactu bimra'atii fi shahri ramadaan subaxeedii annagoo sooman baan gabadhayda u tegay, maxaa igu waajiba? fastafta nabiya sala allahu calayhi wasalam, nabigu fatwo weydiistay, faqaala wuxuu yidhi nabigu hal tajidu raqaba, nafaad xoreysidaad furatid ma haysataa? maya buu yidhi. qaala hal tastatiicu siyaama shahrayni mutataabicayn, 2 bilood oo isku xiga ma soomi karaysaa? qaala laa, ma karaya buu yidhi. qaala faacim 60 miskiina, muttafaqun calayh, wahuwa fi saxiixayn mutawala, saxiixaynka kadalika isagoo dheer buu ku yaala xadiidka kaasi. marka miskiinkana wuxuu siinayaa saan idinba sheegay nus kiilo iyo 10 gram min albur aljayid. arrinta koowaad markaa waa galmada ama jimaaca. arrinta labaad ee soonka ku jabaya walaalayaal waxa weeyaan inzaalu lmaniy, qofka banaadamka inuu manidu ka timaado, manidadaasoo kaga imanaysa isagoo raalli ka ah, oo dhunkasho iyo taataabasho iyo inuu iska keeno iyo howlo caynkaasa la yimaada. taasi waa shahwada ee soonka la ilaahay subxaanahu watacaala inagu amray inaynu shahwada ilaalino, inaynu xirxidhno, kama fi xadiidkii qudsiga ahaa yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli. nabigu waa ka yidhi asawmu lii, ilaahay waa kii xadiiskii qudsigaa yidhi asawmu lii wa ana ajzii bih. xalqadii ugu horreysaynu ka sheekaynay, soonka anigaa iska leh, anigaana ka abaalmarinaya qofka soonka, waayo buu yidhi qofka soomani ilaahay dartii wuxuu uga tegay gabadhiisii, ilaahay dartiisii shahwadiisii buu uga tegay, cabitaankiisii iyo cuntadiisii kadalika ayuu ka joogsaday. rawaa albukhaari. taqbiilka ee ah dhunkashada iyo taataabashada aan wax ka imanayn falaa yuftar, soonkiisaasi waa saxiixo kama jabayo. وفي صحيح مسلم إن عمرو بن أبي سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام ويديه أي يقبل الصائم قفك الصوم وحمر كريا. قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام سل هذه
تنويدي بويدي ومسلم ماشى فديدي ومسلم إلى رأى لكن نقضي واحد تري النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك سيداس مسلمين شري صلى الله عليه صلوات ربي وسلامه عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له أنا قاعد كتقوا بضن إلهي يقعب سبضنا ويراتي مجرته ولكني النبي عليه الصلاة والسلام أنا أملككم لإربه النبي عليه الصلاة والسلام كنترول بقول لي هي إنه إسكيل عن كريه صلى الله عليه وسلم وحينا إنه إسكيل عن كرين قفك الصائم كما كانوا كبقدين بيو كيمادان نكشضها إسكيل عليه تتابشضها إسكيل عليه وتضمن ما بتشرون نكشضها وأنا ليس كبا وشرين تتباشر إسقبون ملا ويقول بارسون كان بعد عكرتها هي تكن سيدا فرص كانت موجودة سريان هي رمضانتي هل استهيو رمضانتي اللي أنت لقاها فرية مغرب لقى قاري تراويح لقى تكنيو اللي استهيا ونكسن ولو إلا تراويح أنا رنينا إلا أنت لا إعظام يوم بالحاجات دو عطدا كو كريس أو سامبوسا هاللابتا أو قريها أو شيء ساقبة إيه هذا كنا نقول كاكس آخر مساجد كاكس كتجو هبين كيو حلا قبصنا يو هلا خبصة ده كذلك محاتين وجحية إنه قفكوا سكيل عليه مركز نكشضة يتتابشضة النبي عليه الصلاة والسلام ويسكنترول كريه لكن بنادك العادي قد كنترول كامله أما الإنزال بالاحتلام أدي لك وحكي مادان isagoo riyoonayo habeenkii intuu seexday riyooday wax ka yimaadeen biyo ka yimaadeen ama shahwadii ama fakaraad isagoo fakara wax takhayul laakiin waxba taaban inay ka yimaadaan labadaas midna soonkiisu kuma jabin maxaa yeelay riyadu ikhtiyaar qofka banaadamka ka soomanay oo malaha isbaba oga naayim weeyaan waa qof hurda تفكيركم فمعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه وحوله إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم إلى سبحانه وتعالى وحور ضافي ومضى إذا وحي نفتي إذا وشك سيدي دنبي خلط أي الغوضة ما لم تعمل دياني خلط ككل دقاقين أمانك تتكلم أنا كشكين قف بعض الكيس إلى سبحانه وتعالى دنبي يسير ضافي وحالة تورنتو سينا قلي صبح يمركو يميد وصفر السما خايدي كشكينيا وحالة والله رقم أنا حالة تاسع سمي أو سدنا نقلبي أو كلام قبطي أو سدنا سمي أعوذ بالله إلهي سبحانه وتعالى يا أخي إلهي سبحانه وتعالى كأسطري الله يستر عليك وأنت تفضح نفسك في القهوة إلهي سبحانه وتعالى كأسطري ما قال هذه من سبق كشكل سوى حصوك له تالف تلقى اللي سكيل عليه أي واجب إنك إذا بليتم فاستتروا به النبي عليه الصلاة والسلام أدي دب الودي دباته إذا كل عضي إس أسطروا حبيس توحينا إلهنا سبحانه وتعالى دم بلاف وديسته إلهنا سبحانه وتعالى يتوب الله على من شاء من عباده جل وعلا waxaynu ka hadalnay arinta waraysa galmada arinta labaad maniga qofku ka soo dego taabashay iyo arimo kale ka yimid hadii kaleba iyo riyooda iyo wax arinta saddexaad al-akl wa shurb qofku inuu wax cuno ama wax cabo waa in qofka banaadamka iisaaru taam cuntada iyo cabitaanka uu gaarsiiyo joofkiisa ilaa calooshiisa ay socoto عن طريق الفم afka عن طريق الافكا ama عن طريق الانف sanka ama meeshii kale qofku wax ka cuno ama ka cabo urta qofka banaadamka uu oro la tufatir urtaasi qofka banaadamka soonkiisa ma jabinayso لانها ليس لرائحه جرم wax laga wadaa wax day culus soo caloosha banaadamka gaaraya urtaasi haba yaraatee ma aha arinta saddexaad marka cuntadii cabitaanka ay noqotay arinta afraad ya ikhwaani ya akhawati waxa weeyaan ma bimaana al-akl wash-shurb wax la macna cuntadii cabitaanka laakiin aan cuntii cabitaan toon ahayn waxa weeyaan ta ugu horeysa xaqnu dam qofka banaadamka in lagu xaqino oo lagu talaalo dhiig marka dhiigida la soo qaaday qofka banaadamka dhiig baxay dhiig lagu shubo halkaas soonkiisa qofka uu ku jabay waxa loo baahan yahay maalinta qaleeyo arinta labaad wax weeyaan irbadaha zayloonka ama glucose-ka qofka banaadamka lagu rakibo kuwaas cunto iyo cabitaan bay kadalika la qiimeeyeen kuwaana waxa waajib ku ah kadalika in qofku uu maadu isticmaalo in wuxuu ku qasban yahay inuu soonkiisa jabayo dib loo qalayn doono تقوى وحين رعاك وكلام أما بريضة أما قعنت ليس قلية دوين لكن أنا هين عنتي عبتان لما أنا هين كوا صونك هو صحيح أو صونك كاغا ما شبهيه وايو لما أنا معها عنتي عبتان تونا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أرنت الشنادي وحويان توبنتا أما ديقة توبنتا كصبحة النبي عليه الصلاة والسلام وحيد أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد وأبو داود قف كل التوبية كي وحتوبية وأفرين وسوق ذي وشبيبوي النبي قال البخاري ليس في الباب أصح منه حديث كصحيح سنة كقوي سني باب كاكم مجركم هينو مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث
marka waxa la macnaa ikhraaj dam qofku inuu ku tabaruco dhiigiisa ama donation blood donation waxaan yiraahdaan oo bixiyo hadii dhiig laga qaado laga shubto marka qofkaas soonkiisa uu jabay waxa ku waajibay inuu soonkiisa dib u cusboonaysiiyo uu qaleeyo maalinta taa waxay noo soo raaca qof walaalayaal taa ugu fiirsada qof dhiigay ka soo baxay dhiigu sanka ka yimid qof heedsan iligintu iska saaray dhiig ka yimid qof nabar ama meel dhaawac ku dhacay qof dhiiga taxliil ku sameeyay ama analyze gareeyay blood test waxa la yiraahdaan ama qofka intuu irbad yar isku dhufto waadiga qofka sokorta qaba waa kan mashiinka yar haysta waa ka irbad intuu isku dhufto halka yar galiya dabeetana waa mashiinka la galiyo si loo eego akhriska dhiigiisa qofka levelkiisa halku marayo waxa soo dhan dhibaato male qofku uu sameyn karayo isagoo sooman inta jeer uu doono soonkiisana waa saxiix kamana jabayo soonku ama uu irbad iskaliya kadalika soonkiisa qofka waa saxiix arinta waxay noo soo raaca at-taqayyu amdan qofku inuu mantago oo waxa calooshiisa ku jira uu banaanka soo dhigo عمدا isagoo kasaya laakiin hadaan camdan ahayn oo qofku mantago intuu iska qabto oo ay caloosh walaaqanto oo manta ka yimaado soonkiisu qofka waa saxiix waa inuu iska meelo oo luqluqdo laakiin qofka bareera ee mantag si isu kasayn mantaga iska keeno ama wax fursada sidoo mantago urxun ama wax xun oo eega sidoo mantago ama wax calooshiisa cascasiro dad baa jirada ka samaynta calooshiisa soo cascasirayo soo qabanaya a'uudu billah siday mantagaan qofkaas soonkiisu waa baatil soonkiisu wuu jabay waa afturaya marka waxa lagu leeyahay qofka ka qallo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis alladhi rawahu al-khamsa ila an-nasa'i wa sahahahu al-hakim wuxuu yiri من رعاه القي فليس عليه شيء قف منطق قصب كل نقضان أنه قبل كرين وحبا كركي سماها ومن استقاء عمدا فليقضي قف كسي عمدية وبريرة منطقة ومنطقة سكا كينينا فليقضي وحلقوا لي هاي قلو أيها النبي عليه الصلاة والسلام أرنت تضباط ولا ليال وهو خروج دم الحيض أم النفاس ديق حيض كي قفك دمركا هوين ذكي مادة بشيء مرهشة صدق 20 إلى 28 تود حيسا ديان استحاضة هين أما ديق النفاس كي أورك وطئية المها إلى سينيو سببتي ذوي مادة كالفتر كيسو وحواجب كوا قفك دمركا إن لبضع سبب ذكي مادة توتالي مركبة سون كذي برتاسو كوتشبي وحويان قفكاسي إني قليسو سون كذا كا أدي ولا ليال حتى أي 5 مرير ama 3 مرير أي صلاة المغرب ka harsan tahay ay dhiiga xaydka ama dhiiga nifaaska ay aragto markiiba tootali waa in ogaataa in maalinta qallo loogu leeyahay hadii ilaahayna qofka saayimka waxaanu banaanayn inuu muftaraadka ilaahay subhanahu wa ta'ala u fasaxay haduu soonkiisu waajib yahay inuu la yimaado uu bareero inuu muftaraadka iska isticmaalo isagoo cudri sharciya ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa aan ka haysan صونك وعبادة توقيفية وعبادة الله سبحانه وتعالى حقيسة كتمد واجب تهي سيدة الله سبحانه وتعالى إنه أمرنا إنه كوجدنه أين وحبا قدرين أين وحبنا كدمن قفك بلاد يكون هذه الشروين يسكت يا ولا ليال وحول بتي في يوم إذا مش هيجيو وحول بقفك بلاد كايسكو ديار الله مصو ديارين أيو وأي واحد كتيم قدر سجاي مكان ما لبعتك مرة كوش هيجي وحلا قابينه أفرش ساعة ديار سيجي قاطي مرة هذه الشروين حيجعليه بنفط وحيجعش هاي واحد ديار يعني قاطته لكن واحد قفك بلاد كواجب كوا والمركز رمضان سو دواته كتاب يرو كرمان تكهليا سوق عضو أخرسه حكام تصونك وحا لو فريو وحا كو حلاله وحا كحنانه تراويحدا صلاه تراويح صلاه النوعد وحنا برتو حاجكم markuu soo dhawaado inaad bug yar soo qaadato oo dan xajka tageen oo iska akhrisato xajka wallahi مسو kala baxaan nusuku wallahi tamattu ifraad قران maxay kala yihiin goorma min la tagaya goorma musdalifa la tagaya arafo ma inta la istaaga maxay lagu duceystaa in qofku thaqafada yeesho oo mar walba cibaadadeenu ma sha Allah diinta islaamku cibaadadiisu waa cibaado mutajaddida oo mar cibaado ku dhibaysa cibaado ku dhibaysa cibaado walba oo diyaar garow wax ka akhriso oo noqo qof thaqafad islaamiya leh dad badan ka tariiqada la martay ku tiraahid arkaanta salaadu maxay tahay garanay dad baan garanay sunnada salaadu waa sunna way maalintii sarkacad baa ay tahay sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam illa tukado ayaan garanayn waa musiiba ya ikhwan waa musiiba ya akhawat yani waxyaalihi ugu yaraay diinta islaamka inaynu garaweyna ma xaq ba waxa dhici karaysa waxyaalaha adduunka ku saabsanna inaynu maalmo waqtigeena ku lumino oo inuu ka sheekaysano oo qofku ninka kubadda ciyaara inta soo qaata tiimkaas uu ciyaara tiimkaas laga soo wareejiyay tiimkaas iibsaday Liverpool baa laga yaabaa sanadka dambe inuu iibsado maanta wuxuu ciyaara Manchester City oo inuu ka sheekayno 20 milyan baa la siistay hebel baa dilaal ka ahaa yani ايش الفائده
كان واحد يقول أما سيردي عمر بن الخطاب، أما سيردي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أما سيردي بلال بن الرباح رضي الله تعالى عنه، إن أخرستين وذوقات دين الإسلام كوحي وقبتين، ودين الإسلام قال كيس تاكسيين، ودين الإسلام كوحي كوسو كرديين، سيد إسلام كأصل قرنوا إسلامين، سيد أودنتين أدوية تنوقتين، وحي النبي عليه الصلاة والسلام وكشهي يوحي لا معناه. إله سبحانه وتعالى وحكرتينيا أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لاغتنام الأوقات، وأن يعيننا بالاشتغال بها في الطاعات، وأن ييسر لنا جميع أمورنا في الدنيا والآخرة، ويجمعنا وإياكم بجناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii uu barnaamijkan ku dhaafo ka daawo safifilms.com